annagoo ka soconna tv-ga jeegaan tv waxaan maanta soo booqonnay mr maxamed oo nin khabiir ah xagga siyaasadda soomaaliya ku xeel dheer wax badanna denmark usoo joogay mr maxamed welcome tv-ga jeegaan waa dhawa waa mahadsanta maxamed haddaan ku weydiino wax badan soomaaliya waa ka dhaceen siba arrimaha somalilan maadaama markii ugu horreeyay waddan soomaaliyeed khaasatan waqooyi galbeed ee ka dhacday doorasho 3 xisbi ay ku tameen waliba xisbiyaas oo ay u cadcadaayeen xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadani sidee kuula muuqataa arrimaha doorashada ee somalilan mahadsan tahay aniga waxaan ahay nin kasoo jeeda koonfurta kasoo jeeda khaasatan Soomaaliya su-aasha ay weydiisay waa ku mahadsan tahay Somaliland doorashada ka dhacday sida aan wada ogsoonnahay waxaa ku wada tartamay 3 xisbi wadani ucid kulmiye aniga waxaan u arkaa doorashadaas mid xalaal aan ahayn waxaa arrinkaas aan ku cadday karaa inay xalaal aan ahayn xisbiga wadani 100% waxaan aaminsanahay inuu ku guuleystay codka ugu badan ama akhlabiyada ugu badan codadka oo la tiriyay sidaas darteed anigoo aad iyo aad u taageersan xisbiga wadani waxaan leeyahay xisbiga wadani codka waa lagu khayaanay sidaas darteed waxaan rajaynaynaa in doorashadaas dib loo eego dad badan waxay is weydiinayaan maadaama meeshii ay ka dhacday doorasho xor ah haddana ugu horreeyay gobol soomaaliya kamid ah si cadaalada lagu tartamay oo xisbadu ay ku tartameen ma noo sheegi kartaa sababta kaliya ee wadani looga shubtay codkii la tiriyay ma noo sheegi kartaa ma noo cadday kartaa ها arrinkaa waxaan ku cadday karaa waxaa macnaha ay sheegay telefishinada caalamka waxay soo wariyeen in shacab badan la xirxiray oo dad badan la dhibaateeyay xabsiyada lagu guray sidaas darteed in badan dadka ka mid ah ma codeynin doorashadaas uma codeynin sidaasaan ku cadday karaa xisbiga wadani waa hadlay waliba gudoomiyihii cabdiraxmaan ciro wuxuuna yiri waa maqlid inuu yiri anigu danta somaliland u tanaasulay maxamedow maadaama ka soo jeedo koonfurta soomaaliya dadka reer waqooyi si u tartameen iyo si isku tanaasuleen bal ka waran dadka reer koonfureedkana siday maanta xaaladooda yihiin waa run cabdiraxmaan ciro waa nin khabiir ah wuxuuna khabiir u yahay wuxuu ogsoon yahay xaaladda somaliland dagaalo fara badan ayay hore u galeen dhexdood ayuu wuxuu ka baqay tanaasulka wuxuu u sameeyey wuxuu fiiriyey danaha somaliland ayuu fiiriyey sidaas darteed anaga mar kale waxaan rajaynaynaa doorasho xor iyo xalaal ah tanaasulka uu tanaasulay cabdiraxmaan ciro aniga xitaa khudhayda waa ku taageersanaya aan kaa dhex galo taas sidee kula muuqataa ninka la leeyahay musabixi inkastoo ninkaas adag yahay oo markuu khudbadaha jeedanayo aysan ka muuqan nin dabacsan oo nin aad u adag yahay bal labada nin kala cadday macnaha siyaasadooda iyo mowqifkooda musabixi sidaan wada ognahay dhibaatooyin fara badan ayuu ka qayb qaatay sida dhibaateynta shacabka somaliland wax badan ayaan ognahay anaga waxyaalo badan aan ognahay qof kasta wuxuu ogyahay ma sheego sidaas darteed umul iyo macnaha maxay dhahaa soomaalida waxbay ku mahmaahaan aniga mahmaad hadda waa iga maqan tahay balse muuse biixi
kolley waxaan ka rajaynaynaa maadaama adiga macnaha si kastaba ha naqato muuse bixi hadda waxaan ka rajaynaynaa in shacabka somaliland inuu mideeyo oo macnaha sheega waxyaalo badan shacabka inuu u qabto oo sidaasaan rajaynaynaa. okay taas haddaan ka gudubno arrimihii somaliland dhanka koonfurta soomaaliya haddaan u dhaqaaqno waa ogtahay soomaaliya ciidamo badan oo ajnabiga jooga dalka 10 sano ayay marayaan wax nabadana sooma kordhin soo in casar laga barta maaha dadka waqooyiga maadaama ciidamo shisheeye ee dalka joogan halkaana ciidamo la keenay in ciidamadaas laga saaro ay dadkaas reer waqooyiga ku daysadaan haddii dadka reer koonfur yihiin soo taa ma haboona maxamedow. horta adiga maxaa horta su-aashaada 10 sano ayaa leedahay aniga 10 sano way ka badan tahay soomaaliya burburkeed waa maya anigu waxaan sheegayaa intay yiraahdeen amisom 10 sano ay wadanka hogaaminaysaa waxayna yiraahdeen nabad baan kusoo dabaalaynaa ilaa iyo haddana dalka soomaaliya nabad ma laha weli dadkii waa la dilayaa waa la qaxayaa ii sheeg niman badan oo waxaa iska jira ii sheeg al-shabaab baa jira waxaa jira quulisata badan oo dalkii dhacaya hadday tahay baddii resourciga waddanka ku jiray shidaalka hadday tahay ii sheeg kii berigiiba ku jiraba marka sidee kula tahay maxamedow oo looga dabaalan karaa iloo arrintu waa nagu daba dheeraatay marka la yidhahdo soomaaliya. wallaahi haddii runta kuu sheego aniga waxaan aaminsanahay ciidamada amisom horta waddanka aada iyo aad marxalo badan ayaa macnaha ay sheegay dhibaato badan ayay sameeyeen dhibaatadaas macnaha 10kan sano macnaha ay sheegay dhibaatadan faraha badan anaga noogu dhacday shacabkeena ku dhacday waxaan aaminsanahay in ciidamada amisom waddanka in laga saaro waa aaminsanahay soomaalida dhexdeeda ay wax qabsadaan sidoo kale madaxda soomaaliyeed waxaa weli aan ugula talinaa in ay sameeyaan tanaasulaad sidii u tanaasulay cabdiraxmaan ciro oo macnaha sheegay oo raggan in lala fadhiisto oo lala wada hadlo shacabka soomaaliyeed way isfahmi karaan. ade maxamedow waa runta taa laakiin soomaaliya markii la eego dhanka koonfurta sidii somaliland oo kale maaha waayo dadku waxay yidhahdeen way ka dad badanta wayna ka maamulo badanta marka intaasoo maamulo maxaa ku diiday inay hal maamul ku midoobaano dalkii samata bixiyaan. maamulahana faraha badan ma ahan horta macnaha sheega wax ummadda soomaaliyeed xal u ah waxaa fiican maamulada in laga gudbo sideed maamulada in laga gudbo oo la dhiso dowlad shacabka ay u midaysan yihiin. aad baa u mahadsantaha maxamed waxaan booqanay ninkaas wuxuu waayay mr maxamed oo aan ku booqanay gurigiisa aad baan kaaga mahad celinaynaa maxamed welcome t v general t v adigoo mudan. adigaa mudan.